wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Xuseen Ibrahim Xasan Buni oo safar howlo shaqo ah ku yimi magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayaa ka qayb galay shir ballaaran oo heer caalami ah kaasi oo lagaga hadlayay gargaarka iyo horumarinta wadamada ka tirsan qaaradani Afrika. Shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin iyo madax fara badan oo ka socda wadamada qaaradani Afrika, hay'ado caalami ah iyo hay'ado dawli ah, shirkado heer caalami ah, ururo iyo NGO iyo madax bannaan iyo hay'adaha qaabilsan dhinaca gargaarka bini'aadanimo. Shirkaasi oo Somaliland ay ka mid ahayd wadamada sida khaaska ah loogu soo casuumay ee ka tirsan qaaradani Afrika oo uga soo qayb galay wasiir ku-xigeenku. Shirkan oo daba socday shir dhigiisa ah oo sanadkii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Nairobi kaasi oo ay ka soo qayb galeen Somaliland. Shirkaasi oo ujeedada ugu weyn ee lagaga hadlayay ay ahayd sidii loo horumarin lahaa loona kobcin lahaa gargaarka dhinaca bini'aadanimo ee la siiyo wadamadani qaaradda Afrika, loolana dagaalami lahaa saboolnimada iyo jaahilnimada, taasi oo lagu soo bandhigay barnaamijyo casri ah oo mustaqbalka dhow wax badan ka dabooli doona baahida aqoonta iyo saboolnimada wadamada qaaradani Afrika. Kadib markii shirkaasi uu soo gabagaboobay ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshayntu Dr. Xuseen Buni uu saxaafadda kula hadlay bannaanka isagoo halkaasi hadallo kooban ku soo ururiyay ujeedada iyo nuxurka uu shirkani xambaarsan yahay iyo muhiimadda ballaaran ee uu leeyahay geyga Somaliland. waxaanu ku bilaabay sida tan. waxaanu ka soo qayb galnay shir ballaaran oo meeqaamkiisu runtii sareeyo caalami ah. shirkaas oo lagaga hadlayo horumarka Afrika. waxaa ka soo qayb galay dadyow matalayay dawladaha badiba Afrika oo iskugu jira qaybaheeda kala duwan ee dawladaha. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay qaadhaan bixiyayaashii laamaha UN-ta, hay'adaha caalamiga iyo qaar runtii maxalliya. shirkan ujeedkiisu ahaa runtii in lagaga wada hadlo horumarka Afrika sidii guud ahaan loo ciribtiri lahaa ay qaadhaan bixiyayaasha iyo UN-tu say ugala shaqayn lahaayeen wadamada Afrika ciribtirka saboolnimada iyo la dagaalanka waxyaabaha aan jahliga iyo cilmi darradu ay sababaan, sidoo kalena dhiirigelinta iyo gacan qabashada dhalinyarada iyo haweenka sidii waxbarasho taama loo siin lahaa loona gacan qaban lahaa. marka runtii farxad weyn bay noo tahay. dawlad ahaan Somaliland waa laynagu casuumay, waanaanu kala soo qayb galnay. hay'adaha qaadhaan bixiyayaasha dhaqaalaha bixiya badidoodiiba runtii way joogaan goobta. waxa ay goobta ku soo bandhigayeen qorshayaashooda ay runtii u qorshaysan inay 2019 iminka aynu runtii galnay. waxa uga qorshaysan inay Afrika guud ahaan ka qabanayaan iyo horumarkeeda. marka dawlad ahaan iyo dal ahaanba inaguna martiqaad rasmi ah ku nimid hadal baynu runtii ku lahayn oo aynu kaga hadalnay qorshaheena horumarinta qaranka iyo sida uu u khuseeyo sustainable development goals ka waxa afka qalaad lagu yiraahdo ahdaafta horumarineed ee waara sida uu ugu salaysan yahay qorshaha horumarinta qaranka. marka runtii xidhiidho badan oo cusub baan goobta ku sameynay, dadyow badan oo kala gedisan oo kala ah haddii noqoto dawladaha Afrika madaxdoodii ka socday ee goobta ka soo qayb galay iyo haddii noqoto ururo badan oo qaadhaan bixiyayaala hay'adaha UN-ta. saaxiibo badan baan runtii goobta ku samaysanay. shirku maanta uu furmay wuxuu socon doonaa haddii la yiraahdo 2 cisho maanta iyo berri ayuu socon doonaa. Abdullaahi Cabdi Cali, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Somaliland, magaalada Nairobi.